bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waa janaalkeena runta wararka. qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona xaalada siyaasadeed ee jubbaland oo weli aada u adag. maxaa ka jira in jifada wasiir jamaal ay weyday kursiga hob 169? sababta ay u weyday maxay tahay? iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladaha filla soomaaliya ayaan daawadayaal warkeena idinkugu soo gudbin doonaa. haddaba daawaday, haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka wararkeena, leega iyo sheerka iyo commentiga noogu dadaala. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya. jifada wasiir jamaal ayaa waxay gebi ahaanba weyday kursiga hob 169. waxaa saacadihii lasoo dhaafay isa soo taraya wararka sheegaya in suldaan maxamed suldaan cabdulaahi cartan oo ah isimada guud ee beesha dubayse warsangeli oo go-aamiyey in jifada wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan laga wareejiyey kursiga hob 169. warsidaha b t ms oo xiriir la sameeyey ilo xog ogaal ah ayaa ogaaday go-aanka kasoo baxay suldaanka maxamed oo ku aadan kursiga hob 169 oo ku fadhiyo wasiir jamaal. ilo wareedyo ayaa waxay noo sheegeen inay macquul ay tahay, la rajeynayo in go-aanka uu gaaray maadaama uu jiro dadaalo muddo socday oo ay wadaan madaxtooyada puntland oo ku aadan in jamaal maxamed xasan la dhaafiyo kursiga iyadoona la adeegsanayo qalinka suldaanka beelaha dubayse. madaxtooyada puntland ayaa kursiga wasiir jamaal uu ku fadhiyo sanadihii tegay la dooneysa nin lagu magacaabo cali mahdi maxamed qalaato, kaasi oo kasoo jeeda jifada reer maxamed cumar oo ah kursiga la sheegay in uu suldaanka maxamed uu u xiray kursiga jifadaasi. jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku sugan maalmahan magaalada boosaaso ayaa waxa uu doonayaa in wax weliba uu sida ugu dhaqsiyaha badan la bedelo, inkastoo salaadiintu ay si cad ay u taageerayaan hogaanka sare ee puntland. madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa weli waxa uu doonayaa inuu tallaabooyin adag u qaado oo ku aadan in gebi ahaanba wasiir jamaal uu dhaafsiiyo kursiga jufadiisa. tanina waxay u muuqanaysaa xaaladaha adag ee doorashooyinka ee ka jirto magaalada boosaaso, iyadoona wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ay aada u adag tahay sida madaxweynaha maamulka puntland oo uga guuleysan lahaa wasiir jamaal maxamed xasan. wasiirka qorsheynta ayaa maalmihii ugu dambeeyay eedeemo kala duwan u jeedinayay mas-uuliyiinta maamulka puntland, isagoona ku eedeynayay in ay doorashada ay haatan ku wadaan boob, xili madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi dani uu ballan qaaday inuu dhammaanba ka taklusi doono kooxaha sida weyn u taageero madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. dhinaca kalena gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu eedeyn u jeediyey guddiga doorashooyinka heer federaal kadib isqaqabsiga doorashada kursiga fahad yaasiin xaaji daahir. gudoomiye ciro ayaa waxa uu tilmaamay in guddiga doorashooyinka heer federaal uu gadaal uu ka riixayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. gudoomiye ciro ayaa tilmaamay in kursiga fahad yaasiin xaaji daahir si sharciyan ah uu u meel maray, islamarkaana loo baahan yahay in wax waliba laga tanaasulo, sida uu sheegay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka heer federaal. gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu eedeyn u jeediyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, isagoona sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu doonayay inuu carqaladeeyo doorashada, waqti walibana waxaa dhici kara dhibaatooyin, ayuu yiri gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka heer federaal. hadalka gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili maalmihii ugu dambeeyay eedeema loo jeedinaya mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka. guddigan ayaa in dhawaalaha waxay si cad u sheegeen inaysan aqoonsaneyn kursiga uu ku guuleystay fahad yaasiin xaaji daahir, inkastoo fahad yaasiin uu isku dayayo inuu laba qeyb u kala qeybiyo guddiga doorashooyinka. haddana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa si weyn uga soo horjeeda go-aan kasta uu qaadanayo fahad yaasiin xaaji daahir. dhinaca kalena daawadayaal, fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waxa uu ku fashilmay inuu kala qeybiyo guddiga doorashooyinka heer federaal
xog hoose ayaa sheegaysa in xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal ay la yeesheen kulan fashilmay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Axadii war qoraal ah oo kasoo baxay guddiga heer federaal ayaa waxba kama jiraan laga soo qaaday doorashadii kursiga tirsigiisu uu yahay Hob Eber 86 halka uu gudoomiyaha guddigaasi Muuse Gelle Yuusuf oo isniintii shaaciyay in uusan aqoonsaneyn Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Tallaabadaasi ayaa waxaa sababtay in agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isku dayay in laba garab uu kala jibiyo guddiga doorashooyinka heer federaal, hase yeeshee waxaa qorshihiisa ka hor yimid xubno ka tirsan guddigaasi oo sheegay in gebi ahaanba aysan taageersaneen. Fahad Yaasiin ayaa doonayay in abukaata Mowlid Mataan Salaad iyo xogayaha guddiga uu u adeegsado meelmarinta natiijada doorashooyinka boobka ahaa ee axadii ka dhacday magaalada Beledweyne, iyagoona saxaafadda la hadlay, hase yeeshee qorshahaasi ayaa fashilmay. Xog hoose ayaa waxay sheegayaan in shakhsiyaad wakiil ka ah Fahad Yaasiin kulan ay la qaateen gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha guddiga xalayto xilli dambe, balse kulankaasi wax natiijo ah muusan kasoo bixin maadaama ay kasoo horjeesteen. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa la rumaysan yahay inay ku dubaqan yihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo Fahad maadaama Rooble uu ka raacdeeyay shaqadii hogaanka NISA oo muddo fara badan uu dad shacab ah uu ku dhibaateynayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin iyo xubnaha kaagdhow ayaa horey waxaa loogu eedeeyay inay gobodfallo waaweyn ay ka geysteen 5 sano ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, iyagoona doonayay inay gobodfalladaasi gambaad ay kaga dhigtaan golaha shacabka. Haatan waxa uu muuqanaysaa in kursigiisa gebi ahaanba uu fashil uu kusoo dhammaanayo maadaama si weyn looga soo wada horjeestay. Isimada Puntland ayaa aqbalay codsiga madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ayaa codsaday in uu la kulmo isimada gobolka Bari uu hogaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse si loo xaliyo arrimaha ka jira magaalada Boosaaso, gaar ahaan khilaafka BSF-ta. Wararka ayaa waxay sheegayaan in isimada ay aqbaleen codsiga madaxweynaha isla markaana dhowaan ay la kulmi doonaan labada dhinac. Madaxweyne Siciid Dani ayaa xalayto si gaar ah u codsaday in uu la kulmo Boqor Burhaan Boqor Muuse, inkastoo boqorku uu diiday kulankaasi maadaama aysan wehelin isimada kale. Madaxweynaha ayaa waxa uu magaalada Boosaaso ka waday kulamo kala duwan uu la yeelanayay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo sidoo kale waxgaradka, isagoona ka dhaadhicinaya wax waliba sida looga gudbi karo. Hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa haatan waxay u muuqanaysaa in rajadiisa ay u rumowday maadaama uu doonayay in ay wax waliba ay si fudud ay ugu soo gabagaboobaan. Culimada Soomaaliyeed ayaa fariin adag u dirtay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Allah u naxariistay geeridii Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo shalayto magaalada Kismaayo qarax lagula eegtay ayaa waxaa si weyn uga hadlay culimada Soomaaliyeed. Sheekhan oo fadhigiisa ugu weyn ahaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa Kismaayo u tagay bixinta duruus diini ah, waxaana lala qarxiyay 3 wiil oo dhalinyaro ah oo la socotay kana tirsan xertiisa Kismaayo. 2 ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa dhaawacmay, waxaana geeriyooday sheekha iyo wiil kale. Sheekh Cabdinaasir ayaa marar badan muxaadarooyin uu qabtay uga hadlay qaraxyada ay fuliyaan Al-Shabaab iyo sida qofka isqarxiya ama qofka kale ee qarxiya Allah uga fogaanayo. Hase haatee culimada Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in aan marnaba loo dulqaadanaynin dhibaatadaasi iyo sidoo kale dhibaateynta culimada Soomaaliyeed. Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo sidoo kale culimada kale ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay fariin adag u direen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku baaraan, isla markaana madaxweynaha maamulka Jubbaland haddii uusan tallaabo u qaadin ay iyaga tallaabo ay ka qaadaan, sida ay sheegeen culimada Soomaaliyeed. Hadalka culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyay eedeymo kala duwan loo jeedinayay hogaanka sare ee maamulkaasi. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelahay wanaagay intaa haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena, like, share, commentiga noogu dadaala. waad mahadsantihiin. nabadgelyo.